kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka aad ku daawan doontaan codka shacabka TV. dowladda Soomaaliya iyo ahlu sunna oo ku muransan maamul u sameynta galmudug iyo munaasabad lagu taageerayo guddiga uu magacaabay Sheekh Shaakir oo ka dhacday magaalada Dhuusamareeb. Soomaaliya iyo Masar oo ka qayb galaya shirka ururka Islaamka. shirkadda DB World oo ay la soo daristay xaalad adag iyo Djibouti oo sabab u noqotay xaaladaasi. la taliyaha farmaajo oo sheegay in al-shabaab ay leeyihiin laba arrimood oo ka dhigaya in ay u dhaqmaan sida inay dawlad yihiin. maamulka gobolka Hiiraan oo amro dul dhigay hay'adaha samafalka. iyo maxkamad ku taala Bangladesh oo xukun dil ah ku fulisay in ka badan 10 ruux. intaasi waxay ahaayeen qodobada aad ku daawan doontaan warka codka shacabka TV. haatan ku soo dhawaada faahfaahinta qodobadaasi. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa ka socda diyaar garow loogu jiro dhismaha maamulka Galmudug oo ay ugu horeeyaan soo xiritaanka baarlamaanka cusub ee maamulkaasi uu yeelanayo. ha yeeshee waxaa jira caqabado hareeyay sida lagu dhisi lahaa maamul loo dhan yahay oo ay yeelato Galmudug. heshiis aan weli si rasmi ah banaanka loo keenin oo dhex maray dowladda Soomaaliya iyo ahlu sunna ayaa dowladda 10 sano kadib waxa ay ku tagtay Dhuusamareeb isla markaana ay uga howlgaleen hay'adaha ammaanka Soomaaliya. ha yeeshee waxaan weli xal loo helin habka loo dhisay maamulkaasi iyadoo dowladda Soomaaliya iyo hoggaanka ahlu sunna ay kala magacaabeen laba guddi doorasho oo isku shaqo ah isla markaana ay ka wada howlgalayaan magaalada Dhuusamareeb. hoggaanka ahlu sunna ayaa dhowr jeer waxa ay ku celceliyeen in xukuumadda Soomaaliya ay ka baxday heshiisyadii ay la gashay waxaana ay u muuqataa in weli aan xal laga gaadhin Galmudug aan dhamaysahayn oo ka jirta deegaanada Galmudug. waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kulamo iska soo horjeeda xalay ku yeeshay xubnaha guddiga doorashada Galmudug oo ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo xubnaha guddiga uu magacaabay madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay u muuqataa inay iska dhigatirayso cabashada ka imaanaysa hoggaanka ahlu sunna maadaama guddiga doorashada ay magacowday uu si toos ah kulamo uga bilaabay Dhuusamareeb halka ahlu sunna ay iyaguna guddi kale magacaabeen kana howlgalayaan isla magaalada Dhuusamareeb. musharaxiinta madaxweynaha Galmudug qaarkood sida Jamaal Guutaale iyo Cabdiraxmaan Odowa ayaa waxa ay ka digeen in Galmudug laga abuuro xasilooni darro taasi oo hor istaagi karta geedi socodka la doonayo in lagu dhiso Galmudug oo midaysan. dhinaca kale isla wararka Galmudug ayaynu ku guda jirnaaye magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa maanta ka dhacay munaasabad ballaadhan oo lagu soo dhaweynayo guddiga doorashada ee uu magacaabay Sheekh Shaakir. munaasabada waxaa ku sugnaa madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan xubno kale oo ka tirsan ahlu sunna iyo Galmudug. waxaa sidoo kale munaasabada ka qayb galay dadweyne aad u fara badan. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa dhawaan magacaabay guddi uu ku sheegay inay maamulayaan doorashada Galmudug waxaana guddigan uu ka soo horjeedaa mid ay horay u magacowday wasaaradda arrimaha gudaha sida warkeenaba aad ku dhageysateen. oo khamiista maanta ah lagu soo gabagabeyn doono magaalada Qaahira iyadoo lagu wado inuu halkaasi ka jeediyo khudbad ku aadan habka uu dalkeenu uga faa'iideysan karo kheyraadka biyaha. wasiirada biyaha ee dowladaha ku midoobay ururka iskaashiga islaamka ee loo soo gaabiyo OIC ayaa sanadkiiba ka arinsada biyo yarida ka jirta wadamada ka tirsan ururkan. kulamada noocan oo kale ah ayaa waxaa laga soo saaraa warmurtiyeed ku saabsan in si guud loo taageero dalalka ay haysato biyo yarida iyo sidii loo horumarin lahaa ka faa'iideysiga kheyraadka biyaha. ahdiga ilaalinta hiddo-dhaqameedka xilliyada colaadaha ayay shalay xildhibaanada golaha shacabka ay doodgeliyeen markii ay horgeysay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. fadhiga oo ahaa kulankii saddexaad ee galfadhiga 6aad ayaa waxaa ka soo qayb galay inta badan mudanayaasha aqalka hoose. xildhibaano fadhiga ka hadlay ayaa qeexay in ahdigan uusan muhiim ahayn maadaama uu ka hor imaanayo diinta suuban ee Islaamka. sharci dejiyaal kale oo sheegay in taalooyinka laga taagay Muqdisho aana loo eegin waxay diinta Islaamka ka qabto iyo ayaa xusay in ahdigani uu ogolaanayo dowladaha Masiixiga inay kaniisado ka furtaan dalka. khalkhal amni ay cod dheer ku xuseen inuu abuurayo maadaama ay joogaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab iyo Daacish. mid ka mid ah xildhibaanada kulanka ka hadlay ayaa daboolka ka qaaday mid ka mid ah tafaasiisha halista ah ee ahdiga ku jira.
Ahdigan wuxuu dhigayaa in kaniisadaha dalka ku yaala in loo ilaaliyo sida masaajidka. Marka sidee la isku waafajinayaa diinta Islaamka oo dastuurkeena uu sheegayo inay tahay mid kale oo loo ogol yahay. Dastuurka qabyada ah ee federaalka qodobkiisa 2 farqadiisa 1, 2 iyo 3 ayaa xeerinaya arrintan. Diinta Islaamka waa diinta dalka. Diin aan ahayn diinta Islaamka laguma faafin karo dalka. Lama soo saari karo shuruuc ka hor imaanaysa shariicada Islaamka. Xubno kale oo qaba aragti midan ka duwan ayaa ka hadlay fadhiga kuwaas oo taageersan sharcigan iyagoo cod dheer ku dalbaday in la dedejiyo meelmarinta sharciga oo akhrinta 3aad la marsiiyay. Soomaaliya oo ah dal lacag geeska qaaradda Afrika isla markaasina leh xeebta ugu dheer mantiqada dariska la ah ee dalalka Masiixiyiinta ayaa dadkiisa waxay boqolkiiba yihiin dad aaminsan diinta Islaamka isla markaasina Sunni. Shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa la soo darsay culays dhinaca maalgashiga ah iyo helitaanka lacago amaah ah oo ay ka hesho bangiyada caalamiga ah si ay maalgelin ugu samayso. Maamulka shirkadda DP World ayaa sheegay in dhibaato xoogan ay ka soo gaartay dacwadii ay la galeen dawladda Djibouti ee ku aadanayd muranka ka dhashay heshiiskii ay kula wareegeen maamulka dekeda Dooraale. Gudoomiyaha shirkadda DP World Sultan Ahmed bin Sulaiman ayaa sheegay in go'aankii dawladda Djibouti uga baxday heshiiska dekeda Dooraale ay dhaawacday sumcaddii ay shirkadu lahayd. Waxa uu sheegay in bangiyadu ay walaac ka qabaan sida loo damaanad qaadayo in haddii ay shirkadda lacago amaahiyaan si loo maalgeliyo iyo in dawladuhu ay qaataan go'aankii Djibouti oo kale ayna qaataan mashaariic fulin jirtay shirkadda DP World. Shirkadda DP World ayaa hadda maamusha dekado badan oo ku yaala qaaradda Afrika ay ku jiraan dekadaha Berbera iyo Boosaaso, waxaana shirkadda khasaaro iyo magac xumo ay kala kulantay dekada Djibouti oo ay ku fashilantay inay maamusho. Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyihii hore ee amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa waxa uu ka hadlay canshuuraha ay Al-Shabaab ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo. La taliyaha amniga qaranka ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay ku xoogeysteen magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka, isagoona sheegay in qaab dawli ay dadka lacag uga qaadaan waa sida uu hadalka u dhigay. Al-Shabaab dadka waa ay dili jireen, weeraro waa ay geysan jireen, balse haatan waxay bilaabeen qaabkii dawladeynta oo ay gaarsiiyeen meel kasta oo dalka kamid ah. Laba arrimood ayay xoojiyeen oo dawladnimada aasaas u ah sida canshuurta dawladdu qaado oo kale, xukunka iyo cadaaladda, ayuu yiri Xuseen Macalin. Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay markasta si toos ah uga imaanayaan ganacsatada halka markii hore uu sheegay inay telefoon u soo diri jireen. Qof socda ayaa u tagay nin ganacsade ah, wuxuu leeyahay anigoo xubin Al-Shabaab ah lacag ayaa laga rabaa, halkii shalay telefoon la isugu soo diri jiray hadda waxa timi si toos ah, waana joogista muuqata ee Al-Shabaab, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Sidoo kale la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in ay hoos u dhaceen weeraradii Al-Shabaab ay ka geysan jireen magaalada Muqdisho. Dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu ugu baaqay inay wax ka qabato habka cusub ee ay dadka lacagta uga qaadaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Maamulka gobolka Hiiraan ee dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu ku amray hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolkaasi inay gurmad ka bilaabaan deegaanada ay ku sugan yihiin dadkii ka barakacay fatahaadaha webiga Shabeelle. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Xuseen Cismaan Cali ayaa sheegay in hay'adaha samafalka looga baahan yahay inay si degdeg ah gurmad u gaarsiiyaan dadka ka barakacay fatahaadaha ee ku sugan duleedka magaalada Beledweyne, gaar ahaan deegaanka Ceel Jaalle. Waxa uu sheegay in dadka ku sugan deegaanka Ceel Jaalle ee ah barakacayaasha aysan haysanin waxyaabihii muhiimka u ahaa nolosha, waxaana hay'adaha samafalka uu ku amray inay si degdeg ah halkaasi ku tagaan. Hay'adii aan fulin amarkaasina maamulku ay la xisaabtami doonaan. Deegaanka Ceel Jaalle oo ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa xilligan ku sugan 100 ruux oo ka barakacay fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle, kuwaasi oo haystaan dhibaatooyin kala duwan. Ugu dambeyntiina maxkamad ku taala dalka Bangladesh ayaa xukun dil ku riday ilaa iyo 16 ruux oo loo haystay dil iyo kufsi loo geystay gabadh yar oo ardayad ahayd. Nusrat Jahan Rafi oo ah 19 sano jir ayaa bishii Abriil dab la qabadsiiyay ugu geeriyootay xaafadda Feni oo 160 kilomitir u jirta caasimadda dalka Dhaka. Dhimashada gabadhan ayaa timid kadib markii qaar ka mid ah macallimiinteedii ay ku eedeysay inay kufsadeen, iyadoona dabka la qabadsiiyay uu gubay badi jirkeedii, taasina ay sababtay inay u geeriyooto.
dilka loo geystay Nusad ayaa buuq xoogan ka dhexdheliyay gudaha dalka Bangladesh iyadoona tan iyo waqtigaasi dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo loogu dalbayo in cadaalad la horkeeno ragii ka dambeeyay falkaasi foosha xun. dadka loo haysto dilka iyo kufsiga Nusad xukunkana lagu riday ayaa waxa kamid ah 3 macallin oo ku jiro maamulaheedii. guud ahaan wararkii aad kala socoteen codka shacabka TV waa naga intaas tan iyo kulan dambe nabadgelyo.